السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada channelkayga waan isalaamay. Sidee tihiin? Ma fiican tihiin? Waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin. Maanta darsigeena waxaan ka hadli doonaa su'aashan ee in badan la isweydiiyo af Ingiriisiga. Su'aasha ay tahay what do you do? Ila macna tahay maxaad ka shaqaysaa? Su'aashan si ugu jawaabto intaasoo jawaab uu noqon karaa. Jawaabayaashaas doona istafiireena. Let's go hadda aan darsigeena bilowno. Darsigeena intaan bilaawin please like subscribe kayga ilaawina comment kana ra'yigiina ii soo qora iyo darsiyaasha kale iga jeceshay inaan ii soo geliyo. The question is what do you do? What do you do? Pronunciation dhawaaqida what do you do? 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 What do you mean? So what about you? What do you do? So ma dhahaysid what is your job or what is your work? Waxaa dhahaysaa what do you do? Maxaad samaysaa? Shaqadaada maxay tahay? Maxaa ka shaqaysaa? Mise waxaa dhahi kartaa what do you do for work? What do you do for work? Wait, but what do you do for work? What do you do for work? What do you do for work? Or mise waxaa dhahi kartaa what line of work are you in? What line of work are you in now? What line of work you in, Bob? What line of work are you in? What line of work are you in? So qofka markuu ku weydiiyo what you do, so waxaa sheegaysaa waxaa ka shaqaysid. Halkee ka shaqaysaa? Halkee ku jirtaa? Halkee shaqaday ku jirtaa? So saana ku jawaabi kartaa. Waxaa dhahaysaa I'm, a, or, an, iyo shaqadaada. For example, tusaale, I am a pharmacist. I am a pharmacist. I'm an electrician. So waxaad u baahantay inaad ku dartid am a mise an iyo shaqadaada sheegaysaa. Am a nurse. Am a nurse aad dhihi kartaa. Mise su'aashan waxaa ku jawaabi kartaa meesha aad ka shaqaysid. Yani adiga line-ka ku jirtid, meesha ku jirtid oo ka shaqaysid markaa rabtid inaad tidhaahdid. So industrygaaga markaa rabtid inaad sheegtid. Masala waxaa dhihi kartaa I work in advertising. I work in advertising. Mise waxaa dhihi kartaa I work in healthcare. I work in healthcare. I work in real estate. Mise su'aasha waxaa ka jawaabi karta waxa adiga aad mas'uul ka tahay oo shaqadaada ay tahay. Waxaa dhihi kartaa I manage social media campaigns. I manage social media campaigns. Mise waxaa dhihi kartaa I run a medical clinic. I run a medical clinic. Mise waxaa dhihi kartaa I own small business. I own small business. Soomaaligood halkana ku soo qori doonaa. Sidoo kale waxaa ku jawaabi kartaa meesha aad ka shaqaysid. Waxaa dhihi kartaa I work at school. I work at hospital. I work at meesha ka shaqaysid. Masala Google, shirkadda Google baa ka shaqaysa. So waxaa dhahaysaa I work at Google or I work at a restaurant. Waxaan ka shaqeeyaa restaurantka. Waxaan ka shaqeeyaa makhaayadda. saas oo kaleetana waa ku jawaabi kartaa. Mise waxaa rabta inaad tidhahdid aniga shirkadaas baan u shaqeeyaa. Yani aniga waxaan ahay shaqaale rabta inaad tidhahdid. So waxaa dhihi kartaa I work for Microsoft. Yani aniga waxaan u shaqeeyaa Microsoft. Mise I work for the government. I work for the government. I work for the government. Waxaan u shaqeeyaa dowladda. Waxaan u shaqeeyaa dowladda. Masala waxaad rabta inaad ka jawaabtid qof baa ku weydiiyey ilaa intee baa halkaas ka shaqaysa. So sidee baa ku jawaabi doontaa su'aashaas? I've been working there for about 2 years. For about 2 years. Yani ilaa ku dhawaad ilaa 2 sano halkaas baan ka shaqaynayay. Ku dhawaad ilaa 2 sano. For about 2 years markaan dhahnay yani ku dhawaad ilaa 2 sano. Laakiin hadaa rabta inaad tirahdo 2 sano aan ka shaqaynayay. Waxaa dhahaysaa for 2 years. Laakiin for about 2 years yani ku dhawaad ilaa 2 sano ila macna tahay. Mise waxaa dhihi kartaa I've worked there since 2020. Yani waxaan bilaaway shaqada halkaas sanadka markay ahayd 2020. Yani 2020 aan ka bilaaway shaqa halkaas since yani bilowga ay sheegaysaa. Waqtiga oo bilowga ah. Mise waxaa dhihi kartaa I started at Tesla a few months ago. Bilo yar ka hor baan bilaaway inaan ka shaqeeyo shirkadda Tesla. Mise waxaa ku jawaabi kartaa I started back in 2018. Okay, مثلا qof baa ku weydiiyey so what you do? Maxaad samaysaa? Maxaa ka shaqaysaa? Saad baa ugu jawaabaysaa I'm a graphic designer. I work for a small tech startup
that you've probably never heard of. I've been there almost 3 years now. Wow, time flies. So a tech startup يعني شركة وهذا بلا متى tech startup شركة أو تكنولوجيا وهذا بلا متى أنا ورجع مقلن بانك شقيا بيتري بانك شقيا أو ورجع أنا مقلن and I've been there almost 3 years now يعني إلى 6 سنة هالكاس بانك شقينية إلى 6 سنة هالكاس بانك شقينية. Wow, time flies. وقتي وأرديا وضوليا. مثلا waxaad tiri aniga waxaan ka shaqeeyaa shirkadaas. So qofka wuxuu ku weydiin karaa okay maxaad samaysaa maxaa waaye mas-uuliyaadkaaga maxaa waxa aad ka shaqeysida mas-uul ka tihid. So saan ku weydiin karaa so what kind of work do you do maxaad samaysaa adoo shirkadaas ka shaqeynaya maxaad mas-uul ka tahay maxaad mas-uul ka tahay elimana tahay su-aasha. So waxaad dhihi kartaa I'm responsible for creating social media marketing campaigns. I spend most of my time developing graphics on Canva. So su'aasha what you do waxaad ka bilaabi kartaa waxaad dhihi kartaa I'm a teacher, I'm a nurse, I'm an engineer, I'm a student, I'm unemployed at the moment. Hadda waxaan ahay shaqo la'aan. Mise waxaad isticmaali kartaa waxaad dhihi kartaa I work as a teacher, I work as a software engineer. I work for Google. I work for a technology company. waxaan u shaqeeyaa shirkad teknolojiyada. markaad isticmaalaysid I work for xilli macnaheed tahay aniga waxaan u shaqeeyaa dadkaas shirkadaas mise qofkaas mise meeshaas baan u shaqeeyaa xilli macnaheed tahay. sidoo kale waxaad dhihi kartaa I work at hospital, I work at university, I work at school. يعني meesha aad ka shaqeysid I work at bank. bankigan ka shaqeeya, isbitaalkan ka shaqeeya, bankigan ka shaqeeya. iyo waxaad isticmaali kartaa I work in markaad dhehaysid yani meesha lineka shaqada aad ka shaqeynaysid oo specific ahaan yani gaar ahaan markaa rabtid waxaad dhihi kartaa I work in healthcare. saxadan ka shaqeeya. I work in marketing. waxaan ka shaqeeyaa suuqa iyo wax iibsadashada iyo inaan suuqa iyo wax iibsashadaan ka shaqeeya. I work in marketing aad dhihi kartaa. sidoo kale waxaa jira side hustles elimana tahay masala adiga waxaad ka shaqeysaa isbitaalka ka shaqeysaa waqtiga firaaqada aad leedahay wax kale ka shaqeysaa. so shaqada kale shaqa dalabaad aad sameynaysid oo waqti yar aad sameynaysid waxaa la dhahaa side hustles. yani adiga waxaa leedahay shaqo oo rasmiya iyo waxaa leedahay shaqo kale oo waqti aad faraaqa markaad heshid aad ka shaqaysid. so shaqadaas waxay ku dhahaan af ingiriisiga side hustle. so waad i weydiin kartaa waxaad dhihi kartaa what you do. aniga waxaa kugu jawaabayaa I work at school and I also teach yoga on weekends. aniga iskuulka baan ka shaqeeyaa sidoo kale weekendska yani isbuuc dhammaadkiisana waxaan baraa yoogaha spoortka ciyaarta yoogada. so I work at school baan dhahay I work at school yani aniga shaqadeeda rasmiga waxaa waaye shaqo oo iskuulka dhexdeeda laakiin sidoo kale anigana shaqada labaadna waxay tahay and I also markaan ku dhahay oo isbuuc dhammaadkiisa yani waqti yar wax shaqada aan sameynayo so waxaa waaye my side hustle yani shaqada kale oo aan sameynayo marka faraaqada aan leeyahay. sidoo kale waxaa ku dhahi karaa I'm a teacher and I also run a small online jewelry store. Right now it's just a side hustle but I hope it becomes my full-time job in the near future. إلما نتهي جملة aniga waxaan ahay macallimad and I also waxaan fiiriyaa small online jewelry store يعني dukaan yariis ah oo online ah oon ku iibiyo accessoiraadka dhagaha gacmaha silsiladaha aan ku iibiyo. hadda keliya waxaa waaye side hustle yani shaqo oo yariisa waqti aan faadi markaan helo aan sameeyo weeye laakiin but I hope it becomes my full-time job
laakiin waxaan rajaynayaa inuu noqdo shaqada shaqada full time ah waqtiga dhan aan siini karo waqtiga mustaqbalka soo socda. sidoo kale masala qof baa weydiinaysa what you do, so wuxuu rabaa inuu kuu jawaabo aniga hadda ma shaqeeyo, shaqo kuma jiro, ma shaqeeyo hadda. sidee buu ku jawaabi karaa sida saxda sida native speakerska saan bay ku jawaabaan I'm between jobs right now, or I'm between jobs at the moment. I'm between jobs at the moment. I'm currently looking for work. Mise waxaad dhihi kartaa I'm job hunting right now. I'm job hunting right now. Yani shaqaan raadinaya hadda. Shaqa raadis baan ku jiraa. Yani ma dhahaan I'm work hunting, maya job bay dhahaan. I am job hunting. I'm job hunting right now. Yani shaqa raadinaya, shaqa raadis baan ku jiraa. sidoo kale waxaa qof guriga jooga hadda oonan shaqayni karin, masala hooyo hadaa tahay mise aabe oo caruurta fiirinaya, so waxaa ku jawaabi kartaa su-aashaas oo kaleeta what you do qofka ku weydiiyo I'm stay at home mom or dad. I'm stay at home mom. Yani waxaan ahay hooyo oo guriga joogta caruurta fiirinaysa, shaqadeeda waa sidaas. يعني توا كل جوابي كرتا يعني سؤال شاسان وأقول جوابي كرتا تلا حدا كرتا سنة أقول جوابي كرتا I worked as an accountant for 10 years but now I'm a full-time mom. My kids are still young, only 2 and 5. I will likely return when my kids are in high school but we will see. Okay هذا كهذا no retired إلا معناتها إنها شغلة laga fanasho oo aan noqotid de qof oo intaas sanayaal shaqeeyay oo okay shaqadiisa dhamaatay. Retired yani qofka oo intaas sanadood shaqeynaya oo hadda kadib retire noqonaya de shaqada laga saarayo oo shaqadiisa dhameystiray laakiin maca dalik lacag sii qaadanayo. So waxaad dhihi kartaa I'm retired now. I used to be a pilot. يعني waxaan ahaan jiray pilot baan ahaan jiray laakiin hadda aniga waxaan ahay retired yani shaqadayda intaas sano waa sameeyay hadda retired. cumrigayga waan kusoo qaatay pilotka hadda waxaan ku jiraa retired yani hadda retired baan ahay waan ka fasax qaatay waan ka baxay shaqadaas laakiin waan ahaan jiray pilot baan ahaan jiray ilamana tahay jumladeena. I retired last year after working as a journalist for 25 years. إلا معناتها waxaan ka fadhiistay shaqada sanadkii hore as a journalist wariye ahaan markaan ka shaqeynay wariye ahaan ilaa 25 sano. يعني shaqadan ka fadhiistay إلا معناتها jumladeena I'm retired. Okay darsigana intaas ahaa waxaan rajaynayaa faa'iido ka hesheen. Please like subscribe kayga ilaawina comment kana ra'yigeena ii soo qoro iyo darsiyaasha kale iga jeceshay inaan ii soo geliyo. Is arag dambe iyo darsi kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.